colka cadaawada huriyay caalamka caalwa ayuu ka joogaa tan iyo markii bishii February 24keeda uu duulaan toos ah maamulka Putin ku qaaday dalka ay dariskihiin ee Ukraine. warbaahinta gudaha iyo kuwa dibadda ila sirdoon iyo qubarro militariba waxay baahinayeen qasaare culus oo labada dhinac soo kala gaaray. maamulka Ruushka waa uu qirtay in uu jiro qasaare ka soo gaaray balse inta uu qirtay waxa ka badan inta warbaahinta dibadda iyo ilaha sirdoonka Mareykanka iyo galbeedka ay sheegayaan, halka Kiyevna ay sheegayso inay qasaare culus dhabarka u saartay Putin iyo maamulkiisa. sidaas oo ay tahay waxaa soo baxaya in saraakiil sirdoon oo ka tirsan Mareykanka iyo xubno ka mid ah midowga Yurub ay banaanka keeneen xog muujinaysa in qasaare weyn dhimashada saraakiil muhiim ah oo la dhabar u ahaa Putin iyo burburka sanad military oo aan la qiyaasi karinba in colaadaasi 60 casho iyo dheeraadka socota inay ku baabaaday. waxaa lagu soo waramayaa in Ukraine ay qaadajisay ku dhawaad 10 generaal oo u dhashay wadanka Ruushka intii uu socday iskoorimaadka, sida uu sheegay madaxa hay'adda sirdoonka difaaca ee Mareykanka. intii lagu guda jiray dhageysiga guddiga adeega hubka ee senatarka jamhuuriga ee lagu magacaabo Tom Cotton ayaa weydiiyay xaqiiqda ah in Ruushka uu luminayo dhammaan generaaladan, waxayna ku soo jeedinayaan in generaaladani ay tahay inay horey u sii socdaan si ay u hubiyaan in amarkooda la fuliyay. madaxa hay'adda difaaca sirdoonka Mareykanka ayaa waxa uu ku jawaabay waxaan u malaynayaa in dadka reer Ukraine ay xaq u leeyihiin marka la eego rafaadka iyo siday u wajahaan difaaca qarankooda. waxa uu intaa ku daray ma hubo in askarta Ruushka ee ka soo jeeda degmooyinka militariga Ruushka ee fogfog ay runtii taasi fahmaan. bishii la soo dhaafay Ruushku wuxuu dalacsiyay taliye cusub oo dagaal si uu ula wareego hawlgallada Ukraine, iyadoo Moscow ay ku dhibtoonaysay inay gaarto yoolalkeeda tan iyo markii ay bilowday hawlgalka military ee gaarka ah. sharaxaadda ay ku calaamadisay duulaankeeda Ukraine Febraayo 24keeda, saraakiisha Mareykanka si kastaba ha ahaatee waxay sheegeen in isbeddelka taliska uusan tirtirin guuldaradii istiraatiijiyadeed ee Ruushka uu kala kulmay Ukraine, iyadoo ay jirto iska caabin xooggan oo uu sameeyay Kiev iyo taageerada uu ka helay Mareykanka iyo xulafada reer Yurub. marka aynu si toos ah oo hoose u yara dhuganno khasaaraha dhabta ah soo kala gaaray, waxay muujinaysaa in Ruushka uu lumiyay saanad weyn iyo sidoo kale agab badan oo ciidan. warbaahinta gudaha waxay tabinaysaa in ku dhawaad 3570 waxyeelo oo saanad ciidan iyo agab kale oo militariba uu jiro oo dhanka Ruushka ah. warbaahintu waxay xaqiijisay ku dhawaad 1969 oo taangiyada dagaalka Ruushka inay ku burbureen duulaanka. sidoo kale waxay warbaahintu xaqiijisay in ku dhawaad 70 taangiyada dagaalka ay waxyeelo u muuqda burbur ay soo gaartay. sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in laga tagay ku dhawaad 2073 taangi, waxaana gacanta Ukraine galay ku dhawaad 1258 oo ah gaadiidka gaashaaman ee taangiyada culus ee Moscow ay ugu tala gashay inay liban ka soo hiyaan duulaanka Ukraine. dhinaca kale haddii aynu eegno dalka lagu duulay ee Ukraine, qasaare waxaa jira 1009 taangi oo wadarta guud ah, waxaana muuqata 470 inay burburtay. dhinaca kale warbaahintu waxay warinaysaa inay waxyeelo gaartay ku dhawaad 24 taangi oo kuwa gaashaaman ah. waxaa sidoo kale laga tagay oo loo caalwaayay ku dhawaad 35 gawaaridaas, waxaana gacanta maamulka Kiev ka baxay oo gacanta Moscow galay ku dhawaad 480 ah gawaarida taangiyada ee maamulka Kiev ay kala hortageen duulaan weerarka Ruushka.